abuurkan aan horumarinayna waxaa waaye galey loo yaqaano somtakis loo yaqaano. jaamacadda Zamzam ayaa bilowday mashruuca horumarinta abuurka beeraha gaar ahaan galeyda oo burburkii kadib farac dhumay abuurka galeyda. jaamacadda Zamzam iyadoo halkaas ka duulayso waxay isku xil saartay in ay ka qayb qaadato dib u soo celintii abuurkii loo yaqaano somtakiska. abuurkan ay hadda kulliyadda beeraha ee jaamacadda Zamzam horumarinayso ayaa ah abuurka galeyda oo loo yaqaano somtakis oo loo soo gaabiyey Soomaaliya iyo Tanzania oo la soo saaray 1979 wuxuuna xilligaas ahaa abuurada wadanka ugu fiican. jaamacadda Zamzam gaar ahaan qaybta kulliyadda beeraha ayaa maanta sameysay tijaabadii koowaad ee abuurka galeyda. Dalagga halkan ku beeran waa galey, waa jaamacadda Zamzam gaar ahaan qaybta kulliyadda beeraha. maanta halkan waxaa lagu sameynayaa tijaabo ah si loo horumariyo abuurka dalagga gaar ahaan galeyda. tusaale ahaan waxaana halkan lagu kala ogaanayaa dhirirka qarinkan, wareegga sabuulka, inta xabad uu yahay, midka ku habboon cunnada iyo midka ku habboon abuurka. waana tijaabadii ugu horreysay oo ay jaamacadda Zamzam gaar ahaan qaybteeda beeraha sameyso. yaxye cabdulaahi ciise hormuudka kulliyadda beeraha ee jaamacadda Zamzam ayaa ka sheekeeyay habka ugu fiican ee lagu horumarin karo abuurka gudaha. waxa naga dambeeya waxaa waaye tijaabadii aan ugu horeysay aan maanta sameynay on harvestingkiida maanta aan sameynay. habka aan ku horumarinayna abuurkan waxaa loo yaqaanaa mass selection ayaa loo yaqaanaa oo ah habka ugu fiican oo lagu horumariyo abuurka gudaha lagu horumariyo. galeydan waxay soo martay gaab waxay soo martay ama good agricultural practice loogu talagalay dhan way soo martay. maanta waxaan sameynay selectionkii sabulka ka dheer yahay, qarinka ka weyn yahay, sabulka oo ka roob badan yahay soo dooranay. inta maanta aan dooranay waxaa u isticmaali doonaa abuur mashruuc xiga oo horumarinta abuurka ah. inta soo harteen waxaa u isticmaalanaa badar. saa darteed marka abuur markii laga hadlo laba shay loo qaybiyaa, hab loo yaqaano formal seed loo yaqaano iyo habka loo yaqaano informal seed loo yaqaano. formal seed maxaa loo yaqaanaa? formal seed waxaa loo yaqaanaa abuur in la soo saaro iyadoo loo maraayo dhammaan sharciyada loogu talagalay habka abuur soo saaritaanka oo la socoto shahaado oo wato. habkaas waxaa loo yaqaanaa formal seed loo yaqaanaa. informal seed waxaa loo yaqaanaa beeraleyda inay iska beertaan, waxay soo goostaan inay abuur ka qaataan, dib ugu celiyaan, diriskooda ay siiyaan ama iska iibsadaan. markaasna waxaa waaye abuur ma la dhihi karo, waxaa la dhihi karaa badar la dhihi karaa. marka 95% abuurada aan isticmaalna waxaa waaye abuur ma ahan informal seed aan isticmaalna, waxay cuntada loogu talagalay aan isticmaalna. Axmed Shire Cali madaxa waxbarashada jaamacadda Zamzam ayaa ka hadlay halka ugu dambayso oo ay jaamacadda Zamzam u socoto. meesha ugu dambaysa aan rabno oo jaamacadda Zamzam inay hubisa ay rabto waxaa waaye in aan hay'adaha iyo wasaaradda iyo kulli aan kala shaqeyno wadankan sida uu ku yeelahay wax loo yaqaan seed bank, because adduunyada hadda qamadigi waa la ceshtay saa aragteen Soomaan qamadiga Soomaaliya keeni jiray wax ka tan saasana loo keenaa. haddii laga ceshto adiga maanta seed ahaysan reliability meesatid. hadda seed bank aysan sida dhiiga soo isbitaalada waxay leeyihiin blood bank maho, yani blood bank waxa waaye qof la haddo emergency imaado, yani dhiig inta la shubay xataa inuu suukrina laga yaabaa qofkaas oo dhinto. Soomaan maxaa la sameynaa marka dhiigi keed ku jira ala siisiinaa. adiga marka inta xaaladda ama dhib hadoo jiro ama dagaal jiro ama dhibaato jirto wixii aad hel weyso keedkaagana gasho waxa la rabaa hadhooti abuuri kartid. Maxamuud Maxamed Xasan rektor ku-xigeenka jaamacadda Zamzam ayaa sheegay in wadankeena uusan gaari karin isku filnaansho cunto ilaa laga hagaajiyo abuurka dalagyada, isagoona u mahadceliyey tiimka barnaamijkan wejiga koobaad ee xoogga geliyey kulliyadda beeraha ee jaamacadda Zamzam. waxaan mar labaad u mahadcelinayaa tiimka barnaamijkan wejigiisa koowaad xoogooda geliyey oo kulliyadda beeraha jaamacadda Zamzam iyo centerka sustainable agriculture-ka iyo environmental study-ga oo runtii arrintan aad uga shaqeeyay iyo ardayda jaamacadda iyo wasaaradda beeraha dowladda federaalka oo iyadana dhiirigelin xooggan noo samaysay. agaasimaha waaxda wax soo saarka wasaaradda beeraha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Muuse ayaa uga mahadceliyey kulliyadda beeraha ee jaamacadda Zamzam shaqada culus ay qabteen iyada oo isku hawshay in ay wax ka bedesho abuurka dalka gaar ahaan galeyda. jaamacadda Zamzam waxaa ugu mahadcelinayaa shaqada culus ay qabatay
tiimkan dhalinyarta ah oo aqoon-yahanada ah oo isku xilqaamay inay soo saaraan somtakastii saxda ahaa sababtoo ah dalka markuu burburay 90kii kadib wax walba way burbureen seedka waa naga burburay intay in wax soo saarka beeraha uu yaraado iyadoo adduunka halkii hektar laga soo saaro in ka badan 100 kintaal. tijaabadan ay sameynayso jaamacadda Zamzam gaar ahaan qaybteeda beeraha waxay horumarin u noqonaysaa wax soo saarka abuurka dalaga gaar ahaan galleyda oo ay hadda sameynayso tijaabadii ugu horeysay. Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta Dalsan, Muqdisho.